markab nooca dagaalka ah oo aan la garanayn dawladda iska leh ayaa weerar ku soo qaaday biyaha maamulka Jubbaland isagoona geystay khasaare isugu jira naf iyo maal. wasiirka wasaaradda warfaafinta Jubbaland Cabdinuur Cali Aadan oo wariyaasha la hadlay ayaa sheegay in markabkan uu soo weeraray jasiiradda Jawaasi Xasaani oo u dhaxaysa jasiiradaha kala ah Kamboni iyo Madabo. wasiirka ayaa xusay in markabkan uu ridayay rasaas xoogan isla markaana uu ku xirnaa qoriga nooca loo yaqaan Zuuga. wasiirka waxa uu sheegay in weerarkan markabka uu soo qaaday ay ku dhinteen 2 qof 9 kalena ay ku dhaawacmeen. waxaana hadalada wasiirka kamid ahaa runtii waxaa jira markab si sharci darro ah oo waliba hubaysan oo burcad badeed ay wadato runtii biyaha iyo qaranimada Soomaaliya ku soo xadgudbay oo soo weeraray meel la yiraahdo jasiiradda la yiraahdo Jawaasi Xasaani oo u dhaxaysa Madhawa iyo Kudaa. markabkaas xalay wuxuu soo weeraray cabaarihii 8 barkii habeenimo kalluumaysata ka soo jeeda Jubbaland deegaanka ah ee badda dhigtay shabaqyo fara badan dooyo 9 doomood ayuu si baraaro u soo weeraray. markabku uu hubaysnaa wuxuu watay qoryaha loo yaqaan Zuuga. doomihii halkaas uu ku weeraray doomihii oo dhan waa baabi'iyay. 2 qofna waa ku dhimatay 9na way ku dhaawacantay. jariifooyinka badda lagu dabto doomihii ay wateen oo dhan oo 60 ka koobnaa shabaqyada dhanna waa baabi'iyey. biraha libaaxa lagu dabo oo libaaxa lagu dabo iyo macallin xirkahoodina oo ayagana gaaray 40 ah wuu baabi'iyey. markabkaasi waa la dagaalay runtii hubka uu wato hub culus oo ahaa. markuu arrintaas sameeyay kadibna dhinaca badweynta u dhaqaaqay saaki aroortii markay tahay. waxaan marka rabnaa inaan arrinkaasi xadgudubka qaawan ah lagu soo qaaday guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleedka Jubbaland meesha ka xukuntay ee ka arriminaysay. waxaan rabnaa anka dowladda federaalka dowladaha dariska beesha caalamka guddiga ilaaliya xeebaha balaha adduunka ilaaliya hay'adda ilaalisa oo dhammaan waxaan u sheegaynaa iyo cid kasta markabkaas sida qaawan u soo weeraray dowladda Jubbaland dowlad goboleedka Jubbaland u soo weeraray ku soo xadgudbay sharciga caalamka u yeelay waliba hubaysan. waxa saarnaa qoryo Zuuga 2 qof way dhimatay 9 way dhaawac. intaas hanti waa burburiyay. doomihii gabi ahaankoodii 3 kamid ah oo dhaawac lagu soo qaaday mooyaane inta kale biyaha galeen asaga wuxuu la dhacay xabado. marka waxaan rabnaa arrinkaasi in wax laga qabto si degdeg ah looga jawaabo. markabkii mar dhow bartiis way muuqatay ilaa 3 meel cabal ayaa laga sii socday. hadda biyaha Soomaaliya wali kama dhamaan. waxaan rabnaa cid kasta arrinkaas wax ka qaban karta dowladda federaalka dowladaha dariska ciidamada Amisom ee jooga Soomaaliya beesha caalamka oo dhan qaramada madoobe cid kasta aan asliga karna xadgudubkaas dhacay wax bay ka qaban kartaa. arrinkaas rabnaa inaan wax laga qabto. arrin qaawan waaye xadgudub cad waaye hanti iyo dad iyo qaran inta lagu soo weeraray. waxaan rabaa arrinkaas in wax laga qabto. ma la aqoonsaday wadanka laga leeyahay markabkaas runtii markabka looma dhawaan kara. waxaa ka dhacaya qoryo waaweyn waa taqaana qoriga Zuuga la diyaaradeed waaye. laakiin anigu inta tabar ah wixii lagu ridi karay waa lagu riday. wuu dagaalamay dabadeedna wuxuu aaday dhinaca badweynta. marka cid iska leh waa la aqoonsan waaye. si kastaba waa markii ugu horeysay markab caynkan oo kala ah weerar ku soo qaada biyaha Jubbaland isla markaana uu geysto khasaarooyin iskugu jiro naf iyo maal. Zikri Cabdiqaadir Karazai TV-ga caalamiga bulsho magaalada Kismaayo. oo waliba hubaysan oo burcad badeed ay wadato runtii biyaha iyo qaranimada Soomaaliya ku soo xadgudbay oo soo weeraray meel la yiraahdo jasiiradda la yiraahdo Jawaasi Xasaani oo u dhaxaysa Madhawa iyo Kudaa. markabkaas xalay wuxuu soo weeraray cabaarihii 8 barkii habeenimo kalluumaysata ka soo jeeda Jubbaland deegaanka ah ee badda dhigtay shabaqyo fara badan dooyo 9 doomood ayuu si baraaro u soo weeraray. markabku uu hubaysnaa wuxuu watay qoryaha loo yaqaan Zuuga. doomihii arna qoryo Zuuga 2 qof way dhimatay 9 way dhaawac. intaas hanti waa burburiyay. doomihii gabi ahaankoodii 3 kamid ah oo dhaawac lagu soo qaaday mooyaane inta kale biyaha galeen asaga wuxuu la dhacay xabado. marka waxaan rabnaa arrinkaasi in wax laga qabto si degdeg ah looga jawaabo. markabkii mar dhow bartiis way muuqatay ilaa 3 meel cabal ayaa laga sii socday. hadda biyaha Soomaaliya wali kama dhamaan. waxaan rabnaa cid kasta
arrinkaas wax ka qaban karta dowladda federaalka dowladaha dariska ciidamada amisom ee jooga Soomaaliya halkaasuu ku weeraray doomiyada dhanna waa baabi'iyey laba qofna waa ku dhimatay 9 way ku dhaawacantay jariifooyinka badda lagu dabto doomiyada ay wateen oo dhan oo 60 ka koobnaa shabakada dhanna waa baabi'iyey biraha libaaxa lagu dabo oo libaaxa lagu dabo ee macallin xirkahoodina oo ayadana gaaray 40 ah wuu baabi'iyey markabkaasi waa la dagaalay runtii hubka uu wato hub culus oo ahaa markuu arrintaas sameeyay kadibna dhinaca badweynta u dhaqaaqay saaki aroortii markay tahay waxaan markaa markab nooca dagaalka ah oo aan la garanayn dawladda iska leh ayaa weerar ku soo qaaday biyaha maamulka Jubbaland isagoona geystay khasaare isugu jira naf iyo maal wasiirka wasaaradda warfaafinta Jubbaland Cabdinuur Cali Aadan oo wariyaasha la hadlay ayaa sheegay in markabkan uu soo weeraray jasiiradda Jawaasi Xasaani oo u dhaxayso jasiiradaha kala ah Kaamboni iyo Madhabo wasiirka ayaa xusay in markabkan uu ridayay rasaas xoogan isla markaana uu ku xirnaa qoriga nooca loo yaqaan Zuuga wasiirka waxa uu sheegay in weerarkan markabka uu soo qaaday ay ku dhinteen 2 qof 9 kalena ay ku dhaawacmeen waxaana hadalada wasiirka kamid ahaa runtii waxaa jira markab si sharci darro ah inaan arrinkaasi xadgudubka qaawan ah lagu soo qaaday guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleedka Jubbaland hal meesha ka xukuntay ee ka arriminaysay waxaan rabnaa anaga dowladda federaalka dowladaha dariska beesha caalamka guddiga ilaaliya xeebaha balaha adduunka ilaaliya hay'adda ilaalisa oo dhammaan waxaan u sheegaynaa iyo cid kasta markabkaas sida qaawan u soo weeraray dowladda Jubbaland dowlad goboleedka Jubbaland u soo weeraray ku soo xadgudbay sharciga caalamka u yeelay waliba hubaysan waxa